magaalada Saylac waa tan ugu qadiimsan guud ahaan magaalooyinka kala duwan ee dhulka ay Soomaalidu degto waxaana la soo degay ka hor intii aysan diinta Islaamku soo gaadhin guud ahaan Geeska Afrika. Magaalada Saylac waxay xarun u ahaan jirtay boqortooyooyinkii Ifaad iyo Adal kuwaasi oo dunida ka soo arrimin jiray waqtiyadii hore. Saylac waxay leedahay jasiirado kala duwan oo loo dalxiis tago. jasiiradahaasi waxaa ka mid ah Saacadiin oo ah tan dadka ugu badani ay u dalxiis tagaan waxaana maalin kasta u dalxiis imaada dad iskugu jira Soomaali iyo ajaanib kuwaasi oo booqda bilicda jasiiradani. Maanta oo aan tagay jasiiradda Saacadiin ayaa waxaan kula kulmay Maxamed Ibraahim iyo sidoo kale Xasan Dhagax oo iyagu ka mid ah odayaasha muddada dheer ku soo noolaa magaalada Saylac isla markaana dadka u dalxiis geeya jasiiradda Saacadiin. waxaanan maanta ka waraystay jasiiradda Saacadiin waxay kaga duwan tahay jasiiradaha kale. waxaan ku noolahay magaalada Saylac waan ku dhashay waana ku dhalay. jasiiradda Saylac haddaan kaaga warramo jasiiradda Saylac waxay jasiiradaha kale kaga duwan tahay waxa ay leedahay geedka aad arkayso oo la yiraahdo mangrove-ka red mangrove. geedkaasi kuma yaalo jasiiradaha kale lamana qabaan. jasiiradaha kale waa banaanka cad oo kale iyadu halka Ilaahay rabbaaniga uu sameeyay. geedkan mangrove-ka aad leedahay ma geed meeshan u gaar ah oo kaliya ka baxay mise meelo kale oo ka baxay? meelo kale oo ka baxa uu jira oo ka baxa bari canfar qoor cankaar baa la magaceeda. cankaarkaas ah ma garanaysaa mangrove-kan yaa annaga af Soomaali waxaan ku naanaa qandal. aad waxa tahay inaa khudii jasiiradda dadka keenay bal geedkan mangrove-ku muxuu faa'iidooyin u leeyahay? geedkan xagga bilicda ayuu aad u qurux badan yahay. geedku intuu dhakada ka soo daayo xidid yoolka dhulka ka geliya mid kale dhirta kale hadii la gooyo dib u fiishaa Soomaa isagu hadaad maanta geyso halkaas ku daay dib uma fiirin murihi soo dib soo baxay mooyaan siirkiisa ma la ilaaliyaa marka geedkan mise iska baxay dir ilaahay geedkan markii hore dir ilaahay buu baxay waxa laga guran jiray berigi hore tiirashan barandiyaasha lagu sameeyay magaranaysa magaalada kale لو يعد تخش إلا سلع أنت المشهد شوقي عيدا خلا شقيا وحبدنا مكتوب يلا وحيد عاقيا ورسول مركا سيلع ما جزيرة دنو كلية هذا مسوك هو كلنا ويلا هذا وقت الدبق سيرد سعدين عباد مشيخ كومالي أو ملح درين سلوكتيا تدوي ديارة أمريكا كي مديروا باصوت الحسن نيجي نوهل كنا وين مدي مركو هالكام مشهد ساوي إنه كحنا يقرأ له بحي هو يابه وارمدو كنا تقولين بيري ما يلا نكوني يدو كتبه مشوق نقول وروح أنا وكلايا أركبه بكلية يا رجال مرة خلق كذا فريستان اللي بيوصل فريستان لبيه توك عامل لبيه توك مالنا ساعات والبا ويودا وشيء هذا أنت جزيرة دتك كينيس واحد باتو إنه نجهر بدمي هيدي وحويان لبت يقولون وحويان لا شش كتر كساق هذا إلا إلى هريود الله شوين وهذا شلون صاروا أنت تانو مركت على التناول والله شان دتك قاعد كرين ما صاروا مركا لكن حقه وسعر الترحيسكم يا الكلام وحقولي هواي كا لكن لفتيد waxa dhibaatooyin ay qabtaan jirto wax dadkan u soo dalxiistaga ay ku soo kordhiyaan haweenaasay ma jirto daawadaan mooyaane anna markasta oo ka hadlay waan ka hadlaa waxaan war wuxuu ugu soo talagalay baasha daladna ha noqotee marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay khayr looga dhigo wasaaradda dalxiiskuna halka u soo jeesato qurba joog iyo qolqol joogba inay Saacadiin loo guntado oo aan quruxdooda lagu soo talagalin iyadana sidii wax loogu qaban lahaa dee laga fikir hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger ma haysaa xaajo tiyara iskuulkii maad geysay hay charger ma haysaa charger casuumadii baan joogaa casuumadii sug الو charger ma haysan waniyo maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waad na weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya
hadal oo hadaalin.